السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada janaalka Cunto Hub. Maanta waxaan ka hadli doonaa program aad iyo aad muhiim u ah marka dad badan ay rajeynayaan programkan inay ogaadaan ama ay xog fiican ka helaan. Programkani wax kale maahan, waxa waaye waa program DV Lottery ku saabsan. DV Lottery waxa laga yaabaa inaad maqashay warbixin aad raadinaysay. haddaadan maqlin DV Lottery wuxuu yahayna muuqaalkan daawo waxaad ogaan doontaa DV Lottery iyo xog walba ku saabsan iyo su-aal walba maanta qalbiga ka guuxaysa. marka haddii weligaa aad ku fikiri jirtay in mar uun aad wadankan USA Mareykanka aad ku noolaatid, aad ka shaqaysatid, aad wax ku baratid, aad rajaynaysa noloshaada mar uun, maanta fursadani waa ay ku anfici doontaa. fursadani waxay ku saabsan tahay sidee Mareykanka marka loogu noolaadaa ama loo degaa adigoo maxaa loo yaqaana si qaxootinimo iyo tahriib aadan maraynin. fursad noocee ayaa jirta marka. fursad waxaa jirta aad u muhiimsan oo loo yaqaano DV Lottery ama Diversity Lottery Visa. programkan wuxuu ku saabsan yahay maxaa loo yaqaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka sanad walba waxay daawacdaa ay soo bandhigtaa fursad lottery loo yaqaano oo waqti nasiib ah oo 50,000 qofood maxaa loo yaqaana dunida dacaladeeda dhan ka imaanaya ay ku qaadanayaan maxaa loo yaqaana maxaa loo yaqaana inay Mareykanka ay ku noolaadaan oo ay wax ka bartaan, ay ka shaqaystaan. marka fursadani waxay fursad u tahay markaasi qof walba maanta ku fikiraya marka inuu Mareykanka wax uu ku barto ama noloshaas Mareykanka uu soo arko uu ku noolaado asigoo maxaa loo yaqaana problem iyo tahriib iyo uusan maraynin. marka programkan DV Lottery marka waa maxay? su-aashooda waxa waaye DV Lottery waa maxay? DV Lottery haddii loo fiirsho waxaa loo yaqaana Diversity Visa Lottery. marka diversity magacaas waa fahmi karta. diversity waa ujeedaa markaasi Mareykanka waxa og tahay inuu yahay wadan maxaa loo yaqaana diversity meena dad kala duwan oo meelo kala duwan ka imaada ku nool wadankaas Mareykanka. marka diversity kala duwanaanshahaas maxaa loo yaqaana marka ay ula jeedaan. marka Mareykanka wuxuu rabaa dad oo adduunka wadan walba dhowr wadan dad inuu ka xusho sanad walba dadkaasna u gaaray 50,000 qofood. markaasi boqtiyaan nasiib waaye oo la galayo marka qof walban adduunka ku nool marka haddii uu la kulmo ama uu buuxiyo shuruudo gaar in uu dalban karo uuna ku guuleysan karo haddii uu nasiib u leeyahay markaasi Diversity Visa. marka waa sanad walba daawacaan marka barnaamijkani gudagal marka muuqaalkani wuxuu noqon doonaa muuqaal hordhac ah oon ku ogaan doono maxaa loo yaqaana gaba ahaanba DV Lotteryga. marka muuqaalada soo socda ayaa waxaan ka hadli doonaa qodobo oo muhiim ah markaasi ku caawin doono lacag xitaa haddaad ku guuleysatid. foomyada soo socda sida loo buuxin doono iyo sida loo dalban doono iyo waxaasan ku hadli doonaa markaasi muuqaalada soo socda. marka muuqaalkan daawo muuqaalada soo socda markaa la soco. sidoo kale janalka subscribe saar marka saa u heshid xog ku caawisa markaasi arrimaha ku saabsan. waana ku mahadsan tahay markaan galno muuqaalka. marka sanadkani hadda soo socdo maxaa loo yaqaana waxaa la ciyaari doonaa ama la dalban doonaa waxa loo yaqaano DV Lottery 2024. marka DV 2024 marka haddii aad ku guuleysato barnaamijkani 2024 waxaad awoodi doontaa in Mareykanka u safartid aadna ku noolaatid meeshaas. marka program overview maxaa waa kala fiir. marka sectionka loo yaqaano 203C oo markaasi Immigration and Nationality Act oo loo soo gaabiyo INA waxa waaye wuxuu siin doonaa dadka immigrantska loo yaqaano diversity immigrantska kuwaasoo markaasi from different countries ama from countries host historically low rates of immigration, kuwaasoo markaasi tusaalahan wadamo badan kuwaasoo qaxootiga aad ugu yar marka kuwa u qaxay wadankaasi Mareykanka. haddii wadankaaga uu yahay wadan maxaa immigrationkiisa uu low yahay
waxaad fursad u helaysaa markaasi wadankaasi in aad maxaa loo yaqaanaa si aad dalban karta fiisaha markaasi marka fiscal yearka wuxuu socon doonaa 2024 ayuu socon doonaa. dadka la qaadanayaan waxay gaarayaan 55,000 qofood ayaa ahaan daafart fiis ahaan loo qaadan doonaa. marka ugu horeeya waxay sameynayaan 100,000 qof ay ka dooranayaan dadkaas millionska ah dalbanayo. 100,000 waxaa la gaarsiinaa marka si loo dhimayo hoos loo geynayo 55,000 qofood. markaasi waxaa la leeyahay applicants who are selected in the program must meet simple but strict eligibility requirements to qualify for a DV. marka waxaa loola jeedaa applicantska dadka soo dalbaday kuwaasoo la doortay markaasi programkan loo doortay waxaa qasab ah inay la kulmaan markaasi qodobadan oo maxalaasi muhiimka ah ama strictiga ah qasab maxaa loo yaqaanaa qodobadan soo socda inay la kulantay. markaasi waxaa la Department of State determines selected through a randomized computer driving. marka waxaa la departmentiga shaqadan loo xilsaaray dadka waxay u dooranayaan waxaa loo yaqaanaa randomized, taasoo ka dhigan meesha bani aadam wax ma doorayo waa computer. marka computerkan oo intaas milyan qofood xogtooda ku jirta waxaa la leeyahay 100,000 qofood ka soo saara. markaas computerka wuxuu sameynaa randomly selection. random selection uu sameynaya. random selectionkaas haddii nasiibka uu noqdo waxay ka dhigan tahay maxaa loo yaqaanaa in fees Mareykan ay helaysid markaasi. waxaa leedahay Department of State distributed diversity visa among 6 geographical regions. marka departmentigan oo stateka fiisaas wuxuu u qaybin doonaa 6 geographical regionska. marka dad hal wadan gaar looma siina. waa kana ujeeda no single country may receive more than 7% of the available DVs in the year. hal wadan lagama yaabo inuu helo 7% wax ka badan. waa fahmi kartaa markaasi in adduunka dhan loo qaybiyo markaasi fiisahan. wadanka markaasi wadamada waxaa loo ogolyahay markaasi 70% inay helaan. marka waxaa la DV lottery oo 2024 ah. markaasi waxaa la leeyahay natives of the following countries and areas are not eligible. haddii wadamadan soo socdo aad ka socoto ama aad ka dhalatay maxaa loo yaqaanaa eligible umatid marka ma dalban kartid sanadkaani. sanadkaani haddii wadamadan soo socdo maxaa loo yaqaanaa ka mid tahay dadka u dhashay ma dalban kartid. wadamadan waxaa ka mid ah tusaale ahaan Bangladesh, Brazil, Canada, China ayadoo Hong Kong ay ku jirto, Colombia, maxaa loo yaqaanaa Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras. wadamadan waa taqaanaa ilaa maxaa waaye Venezuela iyo Vietnam. marka intaan wadan hadii oo maxaa loo yaqaanaa aad ka dhalatay macnaha eligible umatid marka. marka nasiib wanaag wadamadan wadankeena Soomaaliya kuma jiro. taas marka waxay ka dhigan tahay annaga waa dalban karnaa markaasi sanadkan waa dalban karnaa. sanad badan maxaa loo yaqaan dad badan jiro barnaamijka inay ka qayb qaataan, laakiin markay arkaan wadankoodii in uusan fursad u haysan marka waxay ku noqonaysaa qalbi jab weyn ku noqonaysaa. tusaale dadka Bangladesh degan camal aad u daneynayaan markaasi fursada inay ka faa'iideystaan. nasiib darro aan dhahay boqolko tiradooda waxay ka badatay markaasi 50,000 qofood. marka waxay wadamadan u jeedin markaasi shuruudaha ugu horeeya ma buuxinba. wadankoodii low rate ma aan oo high rate marka laga hadlayo. markaas haddii wadankaaga uusan ku jirin kuwaan fursadaada marka ugu horeysa anaga Soomaaliya nahay dadkeena wadankaas maxaa loo yaqaanaa processkan ku tagay immigrationkan lawa marka fursadeenoo tahay marka waa isku dayi karnaa anaga dhan. eligibility markaas requirement ugu horeeya waxaa waaye markaas dhageyso marka shay ugu horeeya laga rabo waxaa waaye inaad native ama aad u dhalatid wadamada kuwaasoo markaasi historically low rates of immigration uu joogo Mareykanka. markaasi taariikh ahaan haddii dadka Mareykanka joogo wadamada Soomaali ahaan 50,000 haddaysan gaarsiisnayn dadka qaxootiga ku nool wadankaasi ee Soomaali ahaan matalo
waa fahmi karta soo maa haddii konton kun hadduu dhaafsan yahay ma dalban karta laakiin requirement ugu hore waxaa in aad u dhalatid wadamadaasi low rateka okay sorry requirement ugu hore waxaa waay in aad u dhalatid wadamadaas macnaha dadkoodii ee qaxooti wadanka Mareykan uusan ka badnayn 50,000 qofood uusan ka badnayn okay marka waxaa loo if you are not a native of a country with historically low rates of immigration to the United States tan waxaa waay waxaa loola jeedaa tusaale ahaan haddii macnaha aadan ka mid ahayn maxaa loo yaqaan dadkaasi shuruud ugu hore buuxiyay oo amkaasi low rate uusan ahayn immigrationka ama xag qaxootiga 50,000 wax ka badan tusaale wadanka u dhalatay dadkooda 50,000 way ka bateen looma ogola maxaa loo yaqaan in ay dalbadaan marka maxaa sameyn kartaa waxaa lagu leeyahay there are two other ways you might be to qualify waxaa jiro laba wada jirto tusaale aad ku dalban kartaa hadii lacag aad u dhalan xitaa wadamadan maxaa loo yaqaan eligible-ka u ah okay labada qodob maxaa waaye waxaa waaye is your spouse a native of a country with historically low rate of immigration su'aalahan haddii xaaskaaga ay u dhalatay wadankaasoo markaasi low rate ah markaasi 50,000 wax ka yar 50,000 wax ka yar qaxooti ahaan ee wadankaasi joogo haddii tusaale ahaan uu jiro xaaskaaga ama tusaale ahaan ninka naagtan sidoo kale ninkeeda haddii tusaale ahaan wadan 50,000 wax ka yar hadduu u dhashay uu jiro waa dalban kartaan haddii su-aashaas waxay leeyihiin yes hadday tahay waxaa lagu leeyahay waxaad fursad u haysataa in aad sheegatid markaasi wadanka isbooskaaga ninkaaga ama naagtaada wadanka ay u dhalataa sheegan kartaa okay laakiin waxaa la rabaa xogtaasi maxaa loo yaqaanaa si applicanti ugu horeeyay uu noqdo qofka wadankaas u dhashay taas waxaan ula jeedaa tusaale ahaan haddii xaaskaaga ay u dhalatay maxaa loo yaqaanaa si wadan la ogolyahay in uu dalbado xaaskaaga xariisanay xogta laakiin ayada markii la weydiiyo ma guursatay markaas xogtaada waxay ku sheegi doontaa booskaas ninkan sidoo kale haddii wadankaasi uu u dhashay uu low rate uu yahay markaasi asam ku dalbanayo kadibna marka uu soo gaaro ma tahay qof guursaday yes markuu dhaw xogta xaaskiisa ayuu ku buuxin doonaa qodobka koowaad waa isla fahmay qodobka labaad maxaa waaye markaasi aad ku dalban kartid haddii tusaalahaan wadankaaga xogtiisa uu dhaafay 50,000 wax ka badan waxaa waaye are you a native of a country that does not have historically low rates of immigration to the United States haddii tusaalahaan aad tahay dadka aan nasiibka u yeelan in ay dalbadaan sababo la xiriir xagga wadankooda uu tirada uu ka bato laakiin waxaa leeyahay but in which neither of your parents was born or legally resident at the time of your birth haddii tusaale ahaan wadankaasi waalidiintaada aysan ku dhalan wadankaasi ama aysan deganaanin ama deganeen xilligii maxaa loo yaqaanaa si dhalanaysay waxaa lagu leeyahay waa dalban kartaa ama kadibna waxaa sheegan kartaa you may claim the country of birth of one of your parents haddii wadankaasi mid ka mid a macnaha tusaale ahaan waalidiintaada wadanka asalka ay kasoo jeedaan iska daa haddii ayaga wadan kale ay ku dhasheen of wadankaasna maxaa loo yaqaanaa si uu banaaya in uu macnaha dadkiisa ay u banaayeen inay xariisan karaan adoo xariisan kartaa adoo isku xiraayo dhanka waalidka wadanka ugu dhashay okay waa isla fahmi karnaa umaleena marka haddii su-aalooyin intaan ka badan aad rabtin waxay ku leeyihiin intaan linkigan hoose ku dhufan kartaa oo markaas frequently asked questions qaybta hoose oo arki doona requirementiga labaad waxaa waay fiir markaas waxaa leh diversity ama DV applicant must meet the education work experience requirement marka waxaa la qof walbo markaas dalbanayo applicationka ama xariisanayo waxaa qasab ah in uu la kulmo education ama work experience educationka wax kale maana inta hoose ku sheegi doona waxaa la rabaa khibrad shaqo inuu lahaado qofka ama waxbarasho inuu lahaado dugsi sare waa kala markaas educationka waxaa lagu leeyahay labadan qodob qofku waxaa waaye at least high school education waa inuu lahaado ama it is equivalent ama waxa u dhigma okay
shahaadad iskuul inaad lahaatid maxaa loo yaqaanaa dugsi sare ama wax u dhigma in aad lahaatid. Okay, markaas waxay ku leeyihiin defined as successful completion of 12 years of course. marka waxa qasab sana dugsi iskuulka waa naqaanaa 12 sano oo qaadanaa in wax la barto. markaasi marka waxay ku leeyihiin dugsi sare, shahaado dugsi sare waa in qofkaan haystaa ama shahaado u dhiganta. su'aal ahaan dugsi sare shahaado ma haysatid, laakiin waxaad haysataa college oo technical oo gacmaha farsamada gacanta tagtay, dhowr sano ku jirtay, 5 sano, 3 sano, 4 sano ku jirtay, shahaado oo diblomadan iskuulka dugsi sare u dhiganta haysataa, ayana waa isticmaali kartaa marka. Okay, ama shahaado dadan haysan dugsi sare ama shahaado u dhiganta, waxaad qasab markaasi inaad lahaatid waxa loo yaqaan 2 years of work experience, 2 sano oo khibrad shaqo waa inaad lahaatid. khibradaasi shaqo waxaa la rabaa in maxaa loo yaqaan within the past 5 years in occupation that requires at least 2 years of training. marka khibradaas 5 sano soo dhaafay waa inaad ku shaqeynaysay. Okay, sidoo kale waxaa qasab markaasi occupationkaasi barashadiisa ugu yaraa inuu qaatay 2 sano. Okay, 2 sano barashadiisa hadduu qaato. Okay, markaasi sidoo kale waxaa jiro xirfadaasi ama khibradaasi waa inay la kulantaa waxa loo yaqaan Department of Labor's content. wasaaradda shaqaalaha ee Mareykanka waa in ay la kulantaa waxa loo yaqaan shaqadaas macnaha xirfadda shaqadaas leedahay. Okay, markaasi shaqooyinka Mareykanka laga ogol yahay linkigan hadda ku dhufatid waa arkaysaa. linkigan hadda ku dhufatid waxa arki doontiin oo dhowr shaqo oo Mareykanka laga ogol yahay. marka haddii aad danaynaysid qaybta commenting hoos noogu reeb si aad u aragtid markaasi ama aan u soo bandhigno markaasi. Okay, su-aasha kale waxaa waaye entry period goormee la xareysan karaa ama uu bilaaban doonaa DV lottery-gan 2024. waxaa la applicants must submit entries for DV24 electronically. marka dadka Mareykanka dadka xareysanaya xogtaani maxaa loo yaqaan wadankan DV lottery-ga dadka xareysanayo waxay ku xareysan karaan xogtaana website-kan lagu magacaabo dvprogram.state.gov. boqolaal website jiro oo iska dhigaya maxaa loo yaqaan in DV lottery-ga macnaha ku xareynayo, waana fake website. fake markaas ka digtoonow. website kaliya aad ku xareysan kartid DV lottery-ga waxaa waaye dvprogram.state.gov programka. marka xilli la xareysanayo waxaa waaye 6 saac oo biinim oo galabti doorkii ah noon doorkii ah 6 saac go markay tahay ayaa xareysan kartaa. oo marka loo jeedo Easter daylight dadka marka 6 saac leeyahay wadankan waxaa lagu xisaabaa Mareykanka oo New York, laakiin anaga waxaan xareysan karnaa saan filayo maxaa loo yaqaan maalintii 5 October waaye, laakiin 6 camal inaad xareysan karno oo la furi doono ama waqtigan oo xiligaas ku soo aadi doono. Okay, waa kana markaasi maalin Arbaca ah bisha ay tahay October, bisha dhalan doonto 5 2000 aan ku jirno 2022. Okay, sanadkan taariikhdan meel ku qoro, xasuusnow xiligan xareysan kartaa. wuxuuna socon doonaa maalin Talaado ah ilaa November 8. marka bil camal haysataa hal bil waxaa fursad lagu siiyay wax walba kaa dhiman ku dhammaystiro. bishaas gudaheeda dhan waa dalban kartaa laga bilaabo October 5 ilaa bisha November 8 waa dalban kartaa. marka waxaa lagu dhahay digniintan fiir do not wait until the last week of registration. markaa sugan xiliga ugu dambeeya last week ama waqti ugu dambeeya xareysanadeen. sababta waxaa laga yaabaa maxaa loo yaqaan systemkii millions aad dalbana systemka markaad gadaal isku dhigtid systemka dhow inaad la kulantid maxaa loo yaqaan dad badan waxaa jir gadaal isku dhiga ama xogti aysan gaarin marka loo sheego saaxiibadooda ay xariistaan ku fikiraya maxaa loo yaqaan ayagana inay xariistaan. marka dadkaas ka mid noqon markii hore xogta shayba gaar markaas in aad xariisatid. Okay, sidoo kale shardigan iska fiir qodobkan aad iyo aad muhiim ah. waxaa lagu dhahay no late interest or paper interest will be accepted. warqad aad buuxinayso ma jiraan, online ka tagaysaa xogtaada isla markii meesha ayaad gelin doontaa.
waxaa la hadii taariikh late interest waxa la ma jiro tusaalahan 8 November ku ogtahay Soomaa November 9keeda isku day in xariisatid absolutely system kam ku ogolaanaynin in maxaa loo yaqaan si xariisatid sidoo kale waxa lagu dhahay the Department of State uses sophisticated technology to detect multiple interests hadii tusaalahan dhowr mar aad isku day in xariisid iska jir hadaba computer inta jiro hadii uu arko in dhowr mar aad xariisatay xogtaan aad garisay wuxuu ku leeyahay xogtaadan ka kacay noqonaysaa marka very careful u sameysa arrinta markaas be very careful sidoo kale waxa lagu leeyahay macna taas kama dhigno ogow soo taas kama dhigno sanadkii hore hadda xariisato sanadkan xariisan kartid kama dhigno sanadkan gudihiisa laga hadlaa okay sanadkii hore hadda xariisatay aadan ku guuleysan sanadkan waa xariisan kartaa ujeedada waxay tahay sanadkan marka xariinaysid hal mar kaliya xariiso dhowr mar ha xariisan waa la fahmaa awleena su'aasha okay waxa lagu dhahay markaas submission of more than one entry for a person will disqualify all entries for that person haddii isku daydo dhowr mar inaad xariisid xogtaada waxa waa markaas computerka mablis la gaaray isla markaa xogtaada waa laga takhalusaa computerka cunay okay markaas waxa lagu leeyahay completing your electronic entry for DV program 24 markaas complete ka dhig markaas complete marka laga dhigaa markaas xogtaada DV loo diray markaas waxa lagu dhahay markaas complete aad u dhigto submit your electronic driver's visa entry form oo markaas EDV entry loo soo gaabiyo oo markaas website jiro xog la buuxinayo website kasta ka xogtaada geli kadibna hadii xogtaasi oo markaas aad ku guuleysatay waa nasiibkaaga waxay ku leeyahay sidoo kale we will not accept incomplete entries tusaalahaan hadii xogtaada qaybka dhammaystiranta qaybka maqan tahay oo ku daasacina okay sidoo kale waxaad ogaanaysaa xaluudha there is no cost to submit the online entry form sidoo kale lacag ma jirto aad bixinaysid si macna formkan aad bixisay lacag la'aan way hadii aad ka mudgeysay in aad xariisatid maxaa way lacag la'aan way hadii tusaalahan aadan aqoon u lahayn maxaa loo yaqaanaa sida loo xariisanayo tusaalahan waxaa jira sawir la rabaa sawirka form loogu talagalay qaab loogu talagalay marka hadii tusaalahan waxaas dhan aadan aqoon internetka iyo waxna aad ku wareerto waxaa u tagaysaa qof aad aamini kartid boqolkiiba boqol aaminaysid qofkaas u tag hadii kale hadii qabsan kartid shaqadan qabso waxa uu dhahay please use an updated browser when submitting your application marka waxa waaye computer fiican qaado internet fiican leh browserkiis uu updated yahay ku xariiso markaas xogtaada okay taa hoos aan u baxno markaas meelaha ugu muhiimsan markaas waxa la xogta laga qaaday marka waxay noqonaysaa name magacaaga oo ah markaas first name last name xogta magacaaga oo dhammaystiran laga rabaa markaas inaad ka taxadirtid passport-kaaga wax ku qoran shahaadada wax ku qoran saas u qor meesha saas ugu xariiso okay waa kana markaas gender-kaaga hadaa tahay lab identity waa sheegaysaa bisha aad dhalatay oo maalinta iyo bisha iyo sanadka sheegaysaa meesha ku dhalataa sheegaysaa country wadanka ku dhalataa sheegaysaa okay use the name of the country currently used for the place where you born okay marka magaca meesha wadanka liska ka dooranaysa wadan hebel u dhashay ama aan joogaada okay marka iska jirto su'aalaan sidoo kale waxa laga rabaa mailing address jiro markaas tusaale address 1 address 2 address kaas marka wadanka uu yahay hadii wadan kale aad ku nooshahay xogtaani oo ku anfici doonta xogta wadanka aad ku nooshahay gelin doonta tusaalahan magaca phone numberka oo lambarka gelin doonta inkastoo ay ku dheen lambarka waa option qasab ma email ku daraysa emailkan aad muhiim u yahay sababtoo markii aad ku guuleysato xogtaani kadibna aad ogaato inaad ku guuleysatay adiga iyo maxalaas safaaradda waxaad ku xiriiri doontaan emailka inta aad ku qortay emailka nadiif oo macquul ah marka agtaada hayaan okay sidoo kale waxaa laga rabaa highest level of education you have achieved su'aalahan haddii tusaalahan maxaa loo yaqaana si dugsiga dhameysay dugsiga leedahay haddii jaamacad dhameysay jaamacad leedahay okay xog markaasi waxbarashada la xiriira ay sheegay tusaalahan
current marital status hadda tusaalahaan aad tahay doob ama qof guursaday aad tahay meesha ku sheegi doontaa. Okay, hadda tusaalahaan qof oo uusan xaaskaaga ahayn aad dhahid xaaskayga waaye, qof ninka uusan ahayn ninkayga waad dhahid, meeshan maxaa waaye waxay kaa dhigi doontaa waxa loo yaqaana ineligible. Okay, ay kaa dhigi doontaa, marka iska ilaali guidelines-ka. fursa waxaa nasiib waa nasiib, baqtiyaa nasiib waaye, lottery waaye. marka da aad ku guulaysatay waa kaasa. hadda tusaalahaan caruur aa leedahay, xogta caruurtaada ayaad meesha gelin doontaa. sidoo kale waxaa lagaa rabi doonaa maxaa loo yaqaanaa photo ama sawir qurux badanaa lagaa rabi doonaa in meesha aad gelisay. sawirkan cabiru leeyahay loogu talgalay oo ah markaasi 600 times 600. Okay, haddii dadkan sawirada qaada u tigtaara sawir passport raba ayaa ku siinaya mid haweysan. haddii aday computerka softwareda ay photoshop ku fiican tahay adaa qabsan karo cid u baahan tahay malaha. marka waxaa nasiib waaye ilaa tal saaro markaasi isku day. su'aal ahaan sawirada formatkooda waxaa la rabaa inay noqdaan JPEG, inay noqdaan la rabaa kale markaasi hadaa aan sheegan 600 times 600 oo pixel ah aa la rabaa dimensionskiisa inay lahaadaan maxaa loo yaqaanay xagga sawirka. marka fursada kale ee ugu weyn waxaa waaye sanadkani waxaa loo yaqaano passport ma lahan. Okay, xil sanadkii hore ama kii ka horeeyay waxaa jiray passport la isku xujeynay. marka sanadkan markaasi waxaa waaye waxaad dalban kartaa passport la'aan ayaad dalban kartaa. fursad aad iyo aad u weyn waa dad badan waxaa jira sanadkaasi passport dadkiis ugu horeey markaasi. marka hadii maxaa loo yaqaanaa aad sanadka hore passport dadkiis ugu hortay, sanadkan fursad aad u weyn aad haysataa oo markaasi passport la'aan ayaad dalban kartaa. taas kama dhigno passport la'aan bixisa, kama dhigno dalbashada kaliya waa passport la'aan waa dalban kartaa. kadib markuu kuu soo baxo waxaa qasab markaasi passport in aad samaysatid. Okay, marka haddii tusaale ahaan aad doonaysid program ku saabsan DV lottery-ga ama sida loo xareysanayo ama su'aal walba ku saabsan programkani, hoos qaybta commentiga ayaad nagu weydiin doontaa. su'aal walba maanta qalbiga ka guuxayso waan ka soo jawaabi doonaa hadduu ilaahay idmo markaasi. marka channelka subscribe saaro si aad u ogaatid warbixin walba ku saabsan applicationkan ama diversity DV lottery-ga. marka casharada soo socda ayaad ku arki doontaa. marka ha iloobin channelka inaad subscribe saartid si aad u heshid xog walba ku saabsan systemkan ama programkan DV lottery-ga. marka intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.